السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركله يبوغي رادرع تاريخ صوماليات قيبتي سلبات أما فوليم توغا u qoray ambassador Xuseen Cali Ducaale Awil qaybtan aan maanta idinka soo xulay oo ku jirta chapterka saddexaad ee buugaasi waxa uu ciwaan uga dhigay xiriirka Soomaalida iyo Tutsiga ambassador Xuseen Cali Ducaale Awil oo inooga warramaya bal hadda taariikhda ka dhaxaysa Soomaalida iyo Tutsiga waxa uu yiri sida tan markii uu Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal ra'iisul wasaaraha ka noqday Soomaaliya bishii Juun sanadkii 1967 aniga iyo saaxiibadaydii inqilaabka wuxuu noo kala diray safaaradaha dibadda aniga waxa la igu qoray safaaradda Nairobi ee dalka Kenya oo aan wali furnayn waqtigaasi sababta oo ah arrintii NFD awgeed ay Soomaaliya xiriirkii diblomaasiyadeed ka goosatay Ingiriiska iyo dalka Kenya mar aan ra'iisul wasaare Cigaal ku booqday xafiiskiisa bishii August wuxuu ii sheegay in uu si dhaqso ah oo 2 bilood ah dib ugu soo celinayo xiriirkii Soomaaliya la lahayd Ingiriiska iyo dalka Kenya waxa uu iga codsaday in aan muddadaas yar Muqdisho joogo bishii Sebtembar sanadkii 1967 ayuu ra'iisul wasaare Cigaal u baxay dalka Congo si uu uga qayb galo shirkii ururka midnimada Afrikaanka OAU ee lagu qabtay magaalada Kinshasa waxaan ka mid noqday wafdigii ra'iisul wasaaraha u raacay Kinshasa waxa wafdiga ku jiray Colonel Abdi Debo Maxamed Saalax oo agaasimo ka ahaa wasaaradda ganacsiga Gariiqan Maxamuud Sheekh Axmed oo ka socda wasaaradda cadaaladda mar dambana Cigaal ku magacaabay gudoomiyaha maxkamadda sare iyo aniga waxa isaguna wafdiga ka mid ahaa Cabdiraxmaan Caabi Faarax oo ahaa agaasimaha guud ee xafiiska ra'iisul wasaaraha diyaaradii waxay caga dhigatay magaalada Bujumbura caasimadda dalka Burundi si ay uga sii qaadato halkaasi shidaal Kabtan Yuusuf Dheeg ayaa taawarka madaarka Bujumbura u sheegay in ay diyaaraddu sido ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wafdigiisa waxa madaarka nagu sugayay madax ka tirsan dawladda Burundi oo horkacay sarkaal generaal ahi wuxuu ku yiri ra'iisul wasaare Cigaal madaxweyne Mukombero madaxweynaha Burundi ayaa markuu maqlay wafdiga Soomaaliyeed ay diyaaradoodu soo caga dhiganaysaa Bujumbura madaarka nagu amray in aanu kugu soo dhaweyno madaxtooyada ku geyno si aydan isu salaantaan madaxweynaha waxa iga yaabisay buu yiri Awil saraakiisha naga hortimid dhamaantood muuqaal Soomaaliyeed ay lahaayeen mid waliba waxa uu ku xasuusinayaa qof Soomaaliyeed oo ataqaanid saraakiishii mid ka mid ah ayaan ku iri aad ayaynu isu shabahnaa wuxuu igu jawaabay waa run annaga Tutsi ayaana la yiraahdaa asal ahaan waxaanu ka soo jeednaa dhulkiina waa markii iigu horeysay ee ay dhagahaygu maqlaan magaca Tutsi madaxweyne Mukombero ayaa si wanaagsan noo soo dhaweeyay madaxweynuhu wuxuu ka jabnaa lugta midig waxaana ku duubnaa blaster madaxweyne Mukombero wuxuu ku yiri Cigaal sida tan ra'iisul wasaare Cigaal waan ku faraxsanahay inaan kula kulmo aniga ayaa jeclaan lahaa inaan madaarka kugu soo dhaweeyo sawad aragtaa oo lugta midig ayaan dhawaan ka jabay taasi oo iga mamnuucday qaabilaadii madaarka waxaan jeclahay in aad caawa nala joogtid si aan martiqaad casho sharaf ah kugu sameeyo Cigaal ayaa uga mahad celiyay sida fiican ee naloo soo dhaweeyay kana cudur daartay codsigii madaxweynaha isagoo oo u sheegay inuu u socdo shirkii madaxda Afrikaanka ee subaxnimadii ka furmayay magaalada Kinshasa kowdii duhurnimo ayaanu u duulnay dhinaca iyo magaalada Kinshasa duulimaadka intaan ku guda jirnay waxa naga yaabisay weynida dalkaasi Congo iyo barwaaqada ka muuqata wabiyada iyo ballayada faraha badan ee dalka Congo caanka ku yahay madaarka magaalada Kinshasa waxa ra'iisul wasaare Cigaal iyo wafdigiisa ku soo dhaweeyay madaxweynihii Congo ee waqtigaasi Mobutu Sese Seko macnaha magaciisu huwan yahay waa diigagii kale ka wada adkaaday madaarka Kinshasa waxa ra'iisul wasaare Cigaal iyo wafdigiisa ku soo dhaweeyay madaxweynihii Congo Kinshasa ee waqtigaasi Mobutu Sese Seko Wazabanga magacaasi oo macnihiisu yahay sida tan diigagii kale ka wada adkaaday waxa dareenkayga soo jiidatay sida quruxda badan ee magaaladu u dhisan tahay waa Kinshasa ee jidadka ballaaran ee gumeystihii Belgiumku ka dhisay magaalada Kinshasa waxay ka dhisan yihiin jiinka webiga Congo oo ka mid ah webiyada waaweyn ee qaaradda Afrika ugu ballaaran jiinka kale ee webiga waxa ka dhisan Brazzaville oo ah caasimadda Congo Brazzaville ee Faransiisku gumeysan jiray maalin shir aanu jirin ayaa Colonel Abdi Debo Maxamed Saalax iyo anigu aanu u daawasho tagnay Brazzaville oo ah caasimadda dalka Congo Brazzaville webiga ayaa xuduud u ah labada dal ee Congo Kinshasa iyo Congo Brazzaville doon ayaanu raacnay 20 daqiiqo ka bacdina waxaanu joognay Brazzaville waa magaalo uu gumeystihii Faransiisku si niyad samaan ah u dhisay hase ahaatee iskuma dheeririn karto quruxda ay leedahay magaalada Kinshasa waxa kale oo aad nooga yaabisay meelaha hilibka lagu iibiyo waxa sudhnaa daayeero qalan iyo xoor ama dabacade kuwaasi oo hilibkooda la qalajiyay waxay noo sheegeen hiliblayaashu inuu hilibka daayeerku iyo kan xoorku ka qaalisan yahay hilibka adhiga iyo kan lo'daba waxay kaloo noo sheegeen in hilibka daayeerka iyo hilibka xoorka ama
ka iibiyaan dadka ladan. haddii aan ku soo laabto arrintii tutsiga, qabiilka tutsiga waxay aaminsan yihiin inay boqolaal sano hortood ka soo haajireen dhulka Soomaaliyeed, weliba dhinaca magaalada Saylac iyo hareeraheeda oo ummado kala duwani ay waqtigaasi ku noolaayeen. waqtigaasi odayaashii unkay qabiilooyinka Soomaaliyeed weli may soo gaadhin xeebaha Soomaaliyeed. tutsigu markay soo gaadheen deegaanka Rwanda iyo Burundi ayay la kulmeen qabiilooyinka Bantuuga loo yaqaano oo iyaguna ka soo hayaamay galbeedka Afrika. Bantuugii kale sida Kikuyadu waxay u gudbeen dalalka hadda loo yaqaano Kenya iyo Tanzania, halkaasi oo ay deganaayeen qabiilka Masaigu. deegaamada dalalka Rwanda iyo Burundi waxa baaqi ku noqday qabiilka Hutuga oo ka hadhay mawjadii Bantuuga ee u hayaantay dalalka loo bixiyay Kenya iyo Tanzania. Hutugu way ka taranbateen tutsigii ay isku deegaanka noqdeen, sidaasi oo ay tahay Hutugu shaqaale ay u noqdeen tutsiga uga shaqeeya beerahooda. boqorkii tutsiga ayaa Hutuga boqor u noqday. midiidnimadaasi waxay Hutuga ku abuurtay ciilqab gaamuray oo soo jiitamayay boqolaal sano. ciilqabkaas oo aakhirkii sababay xasuuqii ka dhacay dalka Rwanda oo ay 800,000 ee qof oo tutsiga ahi ku nafwaayeen muddo ka yar 2 bilood. dowladdii Jarmalka ayaa qabsatay Rwanda iyo Burundi sanadkii 1894. waxay ka mid noqdeen dalalkii Jarmalku gumaysan jiray ee la isku odhan jiray German East Africa oo kala ahaa Tanganyika oo waqtigan Tanzania loo yaqaano, Rwanda iyo Burundi. Jarmalka waa tii lagu jabiyay dagaalkii koowaad ee dunida 1918 ayaa dalalkii uu Jarmalku gumaysan jiray la hoosgeeyay UN-ta ayaa Rwanda iyo Burundi gacanta u gelisay dowladdii Belgiumka, halka Tanganyikana oo Tanzania ah lagu wareejiyay dowladdii Ingiriiska. dowladdii Belgiumku waxay taabagelisay Hutugii iyadoo oo u aragtay in ay dulman yihiin. askar ayay ka qoratay Hutugii. tutsigu way ka faani jireen askarinimada. kaniisadihii Kiristaanka oo ay madax ka ahaayeen baadiriyaal Jarmal ahi ayaa iyaguna la saftay Hutuga, dareenna ku abuuray in ay ka gilgishaan dulmigan tutsiga ee ay ku hoos nool yihiin. wuxuu Belgiumku ku dhiirigeliyey Hutuga in ay xisbi siyaasadeed samaystaan. waxay dhisteen xisbi la odhan jiray Abroma oo uu hogaamiye ka ahaa siyaasi la odhan jiray George Kayibanda oo noqon doona madaxweynaha dalka marka ay Rwanda ka xorowday gumaysigii Belgiumka bishii July sanadkii 1962. go'aanka u yaalay gumaysiga Belgiumku waxa uu ahaa in ay Hutuga dowladnimada gacanta u geliyaan inta ka horeysa ka hoosbaxa gumaysiga Belgiumka. sanadkii 1960 ay doorasho dalka ka qabsoontay. dowlad daakhili ah ayaa dhisantay oo ay madax uga dhigeen garwadeenkii xisbiga ay la lahaayeen Hutugu, George Kayibanda. Rwanda markay dowladnimada qaadatay bishii July 62 dowlad iyo ciidanba wuxuu gacanta ugu jiray Hutuga. madaxweyne waxa noqday Kayibanda oo Hutu ah. wasiiradii taliyaashii ciidamada dhammaantood waxay noqdeen rag ku abtirsada qowmiyadda Hutuga. tutsigii ayaa banaanka la dhigay. halkaas ayaan qaybtan ku joojinaya insha Allah, inagoo qaybtii xigta sii wadi doona. bal hadda xiriirkii ka dhaxeeyay Soomaalida iyo tutsiga. tutsigu ma Soomaaliba? uu isweydiiyay Ambassador Xuseen Cali Ducaale Awil.